السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارta qiimaha iyo qaayaha loo kusoo dhawaada Higgs Technology oo adag barateen inay idiin soo gudbiso muuqaalo ku saabsan graphical design. Maanta waa maskiinkii Maxamed Xirsi ah oo idinkaga soo hadlaya qolka uu degan yahay waliba asagoo idiin soo gudbinaynin muuqaal ku saabsan video editing ama graphical design. Asxaabay sida wada ogtihiin muddo ku siman hal bil wax muuqaal ama aan soo gelin page-kan ama Higgs Technology sababtana waxay tahay waxaan aad culays igu saarmay dhanka waxbarashada oo mataqaanaa ku dhow gabagabo sida ogtiin samarka ayaa bilaabanayo samarkana markuu bilaabanayo waxaa dhamaanaya jaamacadaha xirashadooda sidaas darteed waxaa badanaya imtixaanaadka iyo waxaas meeshan fiiriyay bal maxaa aga jeedaan waxaa waaye paper sidana maalin walba paper u diyaariya halkan fiiriyay bal maxaa aga jeedaan waa presentation sidaas maalin walba presentation u diyaariya halkan fiiriyay maxaa aga jeedaan waxaa waaye jaamacadeedana meesha aga muuqata qoraalka u jeedaan waxaa waaye paperkaas waxa ku sameynaya paraphrasing akhyaare marka culayskaas ayaa jiro bisha soo socota oo hadda bilowday oo Mayna xataa u maleynaa inaan muuqaal soo gelin karo laakiin insha Allah samarka markii la gaaro halkana waxaa ka arkaysiin cashiro badan oo cajiib ah waliba insha Allah hadoo aleedmo percentage-kan page-kiisana waxa soo saari doona insha Allah waxyaabaad qosliyo maanta presentation-kan aan diyaarinayo hadda wuxuu ku saabsan yahay 5G generation ama generation-ka soo socda ee 5G computer-kaygu u xiisay dhab ahaantii inuu ku shaqeeyo software-ada meesha aga jeedaan insha Allah review oo waxa idin soo wada Adobe Light insha Allah mar dhow laakiin insha Allah bisha iga dhamaato